saddex looma heeliyo fuli dulmi badan nacas garmaqaata ah iyo naag masiir badan sidoo kale waxaa la leeyahay saddex looma gar qaado wiil iyo waalidkiis macallin iyo ardaygiis naag iyo nin isjecel kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin iyo soo noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halkan waa Badbaado Show fadlan subscribe share like gray waa ku maasantahay waa wiilkeena hallo kala kiciyo miskiinka waxba yaa lahaatan garabkii bidix waxaa fadhiya Catoosh Caga Dahab marka hore Caga Dahab soo dhaw waan ku dhawahay waan salaamayaa teamka ku xiran Badbaado Show waxaan leeyahay waqti waa idin wacnaado haddaad habeen joogtaan haddaad maalin joogtaan waqtiga idin wacnaado soo dhawaada kuna waad maasantahay xaalka maanta xaalka ugu duwan yahay waa xaalad kale waa marxalad kale waa waji kale oo farxadeed yaa nala jooga yaa dhexda ku jira waa Catoosh soo dhaw brother marka hore badbaada aad u mahadsantahay Xuseen adiga iyo asxaabta halkaan nagala socota maalin wacan ayaan habada ka leeyahay Catoosh taniyo wax ma laga qaban karo safiican wax ma laga qaban karo waa wax kala nooma gasho oo hadda waxaad leedahay cimaamad waan kugu cimaamad waa lagu tuuray saaxiib ma baahantay marka horta marka hore soo dhaw halka aan noogu timid balnoo sheeg marka hore waxaan ka imid magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle oo halka aan ka soo asalno ha iloobina waa magaaladeedii adduunyo Jowhar ka joog aakhirana janno jidda ama Jowhar hawa laba maama adduunyo janno ka joog adduunyo Jowhar ka joog aakhirana janno ka joog jidda ama Jowhar macna adduunyo Jowhar ka joog macna jidda ka joog آخرنا جور آخرنا جانك جو أما هذا آخر كجوك أما جور كجوك واحد من جان معنا أنا آخر جرت أنا جور جوكت أنا جت جوكت ما خطر الله لا والله كذا إن سيدو كلنت ما ده ساجرت دول بود كيس ومكل الحناق هذا يجيد أنك جيد واقع مدالس هذا البدن هام بوحشه نين إسفان شواري إسنوكتي وقاعد يجينا ما هي سمع نيو تاسع صح وستة حنكرر برامج كلا وحاجة جري أو ليس سدح ساعة إن سيدو كلا أنت وحال لي ميل كمقناو أما كموقنكي مقن سعيسى دبيدلو إن برامج كسدح ذو برامج آد وحي صبرنا وحال لي هاي سدح لو ما فانو إن وحال لي سدح لو ما فانو ناق قروح بدن قري كراء يجاري تبلع سدح لو ما هيليو فولي دلمي بدن نعس garmaqaata ah iyo naag masiir badan sidoo kale waxa la leeyahay saddex looma gar qaado wiil iyo waalidkiis macallin iyo ardaygiis naag iyo nin isjecel saddex looma xiisa la leeyahay diris xam badan sidoo kale suldaan qaylo badan iyo naag faam badan yaani looma xiisay waxa la leeyahay saddex dadka kugu nacayo bugtaan badan baahi badan iyo baryo badan aan leeyahay marka war Catoosh horta inaba caadimatay mahmaahiyada waxa waaye waa ku fiican tahay sax wararkii waa ku fiican tahay dhan walba ku fiican tahay nin waxa jira nin aad matasho oo BBC ka shaqeeya oo xitaa magacaada laagtaan ninkaas horta wali ma kulanteen oo saartaan ninkaas asaga iyo wasaaradda dhalinyarada xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiri aaday u maaseen oo waa kulanay xagga iyo wasaaradda ayaan ku kulannay oo balanqaad ayuu noo sameeyay marka xitaa dhanka Catoosh isku fadhiisteen waa kulanteen dhanka aniga marka la soo wacay waxa wacday wasaaradda oo xiriiriyeen asaa wasaaradda soo wacay maadaama wasaaradda reer Jowhar ay tahay ay iyadana kamid tahay dadka wax badan ay qabtay ilaa wasiirada isboortiga iyo ciyaaraha dhalinyarada Hirshabelle Khadiija Maxamed Diiri waa Hirshabelle soo jeeda wali Jowhar ku dhalatay oo qof weyn ah qof qiimo badan ah xitaa kamid ah qofka ugu horeeyay ee garab isiya ma sha Allah oo markay Facebook iga aragtay oo xitaa waxay dhahday Catoosh lambarkiisa ma lambar kale kuma kalsoonaan kara sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wiilkeeda oo marna saaxiibkeyga ah Cali wiilka la Cali Daadir oo asagana ah wiil aad qiimo badan u leh oo asagana si fiican ii taageero oo inta badan isoo xiriiriya ما شاء الله marka hadda maanta waxa ka soo muuqata channelka Badbaado Show xalada asxaabtu xiran asxaabtu waxaan leeyahay badbaada ka xasdina subscribe-ka like-ka share-ka
sidoo kale inta soo booqo janalka Wariye Catoosh oo ku soo daldal adiga subscribe-ka abuu lacag ma aha waa free walaalka wax ku tartay waa marka waxaan leeyahay halkaas ala soo kala kiciyo Caga Dahab soo kala kiciya maalmahan aan joogane barnaamijyo cusub aan idin wadnaa waxaa kamid ah riwaayadii Musoome oo ay jilayaan qaar kamid ah dhalinyarada reer Muqdisho ayaan rabaa in aan soo bandhigo maadaama soonka maalmo yar ay ka harsan yihiin sheekooyin kale aad u xiiso badan waxaan sameyn doonaa barnaamijyo kala duwan riwaayad short film challenge iyo Catoosh intuu nala joogo waxa waaye wax badan ayaan xalaa kala kici doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa in aad u xirnaan doontaan la tixgelin doontaan Catoosh waxaan ka rabaa waa adeegkan aad ka sare maray si fiican oo social media madaxa uu istaagtay horta kii Facebook la lahay kaasi meel lagu xiray abuu YouTube ay soo yeerma Facebook hadan hadda galo ama live galo ama sawir dhigo ama ahaan muuqaal caadi dhigo horta xaggaas waa ku kalsoona okay maxaa xiisaysaa adeeg Catooshaan waxyaaba aad xiisaysaa aniga waxaan aad u xiiseeyaa hadal haynta bulshada sheekooyinka ciyaaraha iyo riwaayadaha adiga macnaha arrimaha bulshada ayaad xiisaysaa si fiican okay dhanka waxbarashada iyadana aad u xiiseeyaa oo waxaan jeclahay isla maanta waxa la hadalhaayo in aan bulshada u soo gudbiyo oo bulshada soo gaarsiiso hadday noqoleed waxbarasho hadday noqoleed ciyaaro hadday noqoleed iidhe hadday noqoleed murti imaama hadday noqoleed geeraaro xataa waa lagu dhax tuuraa waxaa jira geeraaro oo dadka jaceylku u waashta ay akhristaan sax dahab baa lagu moodaa ayuu leeyahay hadduu ruux ku daawado kama daayo eegmada danihiisu wuu gabaa daliilan uma baahna da'yartii qurxooneed dahablamood inaad tahay dadka baan u sheegayaa bil baa dhibaya maalmahani dhibaya canshaqa dhibkiisa qofka looma dhaafo qaali hurda dhinac ma seexdo aad iyo aad Allah ka dhacay kaasi wuxuu Catoosh oo soo bandhigay talentigiisa gaarka ah ee uu Ilaahay ku hibeeyay idinkuna waxaan filayaa inaad soo saari doontaan ninka la yiraahdo Catoosh waa nin dhalinyaro ah run ahaantii barihan wuxuu nala joogaa magaalada Muqdisho wuxuu naga soo booqday gobolka Shabeellaha Dhexe haddii hala kala kaciyo caada sala marsiyo Catoosh Sofia reer Johor ayaa tahay Shabeellaha Dhexe gaaraan Johor wili Johor waxyaabo aad ku amaantay ama aad u samaysay ma jiraan Johor horta waa magaaladii qurxooneed ee dunida idilkeed caalamka ka sareysay bulshadu ay ku nooleed hamigooda sareeyo soo dhaweynta iyo bogaadinta dadka ay u bageen bilicda magaalada isha ay u bageysay gabi noocaas ayaan u sameeyay oo inta badan oo quseeya magaalada ما شاء الله أدبر ما سنت عطوش رد أركيسا وأنا إنما أنا عادي هاي كبتي سنة وما قشوا أرد أنا كبتان وحاول ما قشكر أنا على الكتاب وحاول وأكو سارني أنا جنا وان إذين ساري إن أصحابتنا وان أسارينا أذن كنا سبسكرايب كل عجمة إسكسار هذي قف كلا وأسارنا وولالك عطوش وولالك Caga Dahab وولالك حسين بدبادو مركا هلا كلا كعيو مركو حان إذن لنا نميو عادي iska dhiga oo noo kala kiciyo oo nala jaan qaado oo waxba yaala iska kan sababtoo ah waxa idin hadlaay waa wiilasheena waa ninkii miskiinka ah ee badbaada ah waa Catoosh waa Caga Dahab marka sababtu maxay tahay aad subscribe ugu saari la'aadin billahi way saaraya qasbatin maanta yaa wadnaa Catoosh wadnaa jawhar dad kalma keena doona insha Allah oo talent la Catooshna maalmahan waa wada joog doona oo maxallahay waxay saar doona barnaamijyo aad u xiiseeysan riwaayadii Musoome oo qayb yar ayaan iga fahansiinaya xariifka imaanayo dukaanku tagaa wuxuu leeyahay maalmahan horta coronavirus waa jiray soo waa lagu jira magaalada an qabaafa ka jiro nusqiiladoo baastaan rabi naagtan iyo asbax waa horta wax ii kar markaan dhoo soon waayay anigana bahala ahay maxaan sameeyaa عريب جيلي كرا على رامر عادي بركة دي لها كسر دمستر دونا جوجي وايد وقرنتها ويديار سنتها ويكلا كعسنتها هاي إن شاء الله وحان رجينا إن عاد وذسوق الدونتان سيدو كلا أنت صانك تلقى نحتاج وحيابة ومحلة وحنا سمعت دونا
aad u bogi doontaan insha Allah halkaan ayaan si toos ah inagala jaaqaadi doontaan iyo sidoo kale channelka Caga Dahab iyo sidoo kale Wariye Catoosh Wariye Catoosh yaa liiloobina alla kale ka waxaan rabaa subscribe ka Catoosh in laga dareemo inuu kor u kacay in laga dareemo insha Allah taala inta ka horeysana waxaan idin leeyahay inta aan dib ku kulmi doono kulanka mid ka xiga sidaas iyo nabadgelyo amaana